waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saas la egma ilaabin baa saxaafadana waa salaamayaa salaanka bacdi maanta waxa sharaf noo ah in aan furnay laantii saddexaad ee laga furay degmada Daynile taasoo tusaale u ah siyaasadda dawladda Soomaaliya ee ah in la daadajiyo adeegyada bulshada oo loo daadajiyo shacabka waxaan marqaati ka ahay hay'addan socdaalka iyo jinsiyadaha shaqooyinka loo igmaday sidii uu haatan ka hadlayay agaasimaha waaxda jinsiyadaha 34 laamood in ka badan inay ka furan yihiin dalka Soomaaliya saas la eg agaasima shiinana uu asaguna xuduudaha markuu hadlayay uu ka taariikhaynayay waxaad halkaas ka dareemaysaan in ay ka dhabaysay siyaasadii dawladda oo ahayd in shacabka loo daadajiyo adoogooda si ay u helaan meelaha ay joogaan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay hawshaan la qabtay oo uu haatan horjoogaha u ahaa ama hormuudku u ahaa agaasimaha waaxda socdaalka jinsiyadaha Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow oo inta la keenay aad u malaysay in dardar cusub la geliyay howlihii ka socday haday noqon lahayd aqoonsiga baasaboorka Soomaaliya iyo adeegyada kala gedisan iyo waliba xarumaha cusub ee lagu soo kordhinayo mudanaagaas aad baa u mahadsantahay iyo shaqaalaha iyo howlwadeennada hay'adda intiina dhamaantiin inta kadib waxaan rabaa inaan u sheego agaasima adiga iyo howlwadeennadaada kuma filno magaalada Muqdisho 3 laabood kuma filno aad iyo aad bay u balaaran tahay 4 milyan in ka badan oo shacab ah ayaa degan magaalada Muqdisho ee haatan inta aniga aan joogay laantii koowaad waa iga horeysay ee shaqaalaha laantii labaad ee Cabdulcasiis laan ahaan waa iga horeysay laakiin markii laga soo muxuu ahaa dhagax dhigeedii baan nasiib u yeelanay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo aniga iyo agaasimihii ka horeeyay inaan dhagax dhignay degmada Shibis oo haatan meel fiican ay maraysa aan filahayo maanta waxa sharaf noo ah inaan tii saddexaad aan goobjoog ka ahay agaasima adiga iyo hadii la yiraahdo wax walba taariikh waa laga tagay adiga iyo howlwadeennadaada waxaan idinka codsanayaa adinkoo la kaalmeysanahay hay'adaha ku shaqo kale in magaalada Muqdisho la gaarsiiyo inta la gaarsiin karo oo lama ah hadii ilaahay ka yeedho in magaalada Muqdisho la gaarsiiyo inta la gaarsiin karo oo maxaa la yiraahdaa adeeg loo dhaadhicin karo maadaama ay 4 milyan oo shacab u baahan adeeg ay muxuu ahaa ku nool yihiin inta kadib hadii farxadaas iyo wanaagaas iyo muxuu ahaa hawshan maanta la qabtay intaas aan uga baxo mid kale Daynile waxaan idinku amaanayaa horumarka ka muuqda Daynile haday noqon lahayd isku tashateen iyo jidadka aad dhisateen oo iska wax u qabsan ku dhisanaysaan iyo hay'adaha kala gedisan iyo meelaha aan marahayay maanta oo aan dhihi karno aad iyo aad ugu qurxan tahay dhinaca amnigana aad iyo aad baan ku amaanaynaa Daynile marka ma waajib ku ah ayadoo reer Muqdisho iyo reer Soomaaliya oo dhan aad la qabtaan haddana waxa laga dhabeeyay soo daadejintii adeegyadii iyo muxuu ahaa ayaa laga dhabeeyay sidii uu agaasimaha afku dhuftayna airportkii halka ku yaalay si saxmadda looga soo qaado airportka aadan cadde waa in maxaa la yiraahdaa wasaaradda gaadiidka iyo dawladda inteeda kala gedisan ay indhaha weyn ku soo fiiriyaan si saxmadda haysato airportka aadan cadde looga soo qaado oo diyaaradaha localka ah ay halkan ka soo degaan kaliya halkan ma ahan dawladaha adduunka oo saas weeye airport international ah iyo mid local ah marka midka localka hadda waa haysanaa maxaa idinkaga baahan yahay marka Daynile waxa idinkaga baahan yahay maadaama aad tihiin degmooyinkii daafaha magaalada Muqdisho markii daafaha la leeyahay waxay ka soo bilaabanaysaa Gubadley Daarusalaam Daynile Garasbaaley meesha la yiraahdo Darkeley iyo Kaxda intaas waxa la isku yiraahdaa daafihi oo xiriir ama la leh juqraafi ama maxaa la yiraahdaa dariseen la leh gobolka Shabeellada hoose iyo gobolka Shabeellada dhexe intaas la soo bilaabo meesha aan sheegay ilaa meesha ku dhamaato iyo la leedahay marka waxa la rabaa amniga inaad indhaha weyn ku fiirsaan waxa jira kuwa nabadiid ah oo soo dhuumaaleysanayo oo hoobiyaal ka soo tuturay meelaha qaarkood waxaan ku amaanayaa Daynile bilooyinka ugu dambeeyay ama 6 bilood ugu dambeysay Daynile hal madfac oo loo soo tuuray kuma soo dhicin magaalada Muqdisho
ودلال أدموجسان ويكون الرئيس قدوميهن دقمدا لاميهن أمنية يدمان وضياش دقنك إسكالميساتين وحكوها شان وحوية أذنكم وحد هلسان أذنك بعد هلسان وحد هشان لا تصحى القوة هشان واحد هلي دونتان إيربورت واحد هلي دونتان واحد هلي دونتان إسبيتال هلي دونتان واحد هلي دونتان وحول بو أذنك برشلونة لو بهي وهلسان سمحك الرئيس سأدو سكتين أمنية إن تكسي أتكاتان ساسلك degmooyinka dariska ah oo garas baalay ay kamid tahay oo daarusalaam ay kamid tahay oo gubadley ay kamid tahay oo dharkeeley ay kamid tahay oo kaxda ay kamid tahay ayaguna ku dayda meesha la yiraahdo daynila oo dadka wax soo tuuraya ay soo dhumaalaysanaya shacabka way wax ka taan kara ciidanka waa dadaalayaan waa taagan yihiin laakiin in ilmo dhorta la yiraahdo shacabka ku soo dhumanayaan si ay daynila wuxuu ahaa koow oo gashay adinkuna koow iyo laba oo galan leeyahay oo fariintaasna waxa u dirayaa degmooyinkaas dawladdu waxay ballan qaadaysaa sida caadiga ahaydba inay waajibka ay lahayd gudato aad iyo aad ayaan mar labaad waxaan u salaamayaa degmada daynila iyo shacabkeeda علماء الدين كذا يهوين كذا دميرة إيو حكستة هذا يدمان هذين لو أسود ومن وحين الله يهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.